markale soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan ku hadlaynaa qoys aad u ballaaran kaasoo la isku yiraahdo Dero family ama sidoo kale magaca guud ee leeyihiin ee loo yaqaano Serfdai family waxay ka kooban yihiin 47 xubnood ama 47 nooc oo kala duwan dadyaga Soomaalida ahi waxay inta badan aad u garan og yihiin noocyada ka mid tahay deerada garanuugta cawsha iyo bahalka kale ee loo yaqaano biciidka haddaba mid kasta waxaanu u sii gali doonaa hoos inagoo kala qaadayna qoyska inta ka kooban yahay midka lab iyo midka dhadig waxa loogu yeero midka lab ee deerada waxa loogu yeeraa deer halka midda dhadig loogu yeero deero isla mar ahaantaasina ay deeradu tahay middan ugu xirfada badan leh ugaadha isla mar ahaantaasina in kooxa oo meel wada daaqayso loogu yeero wadar deerooyin ah goodirka oo isaguna inta badan dadka Soomaalidu ay ku qaldaan xayawaanadan kale ee la midka sida deerada garanuugta iyo cawsha ayaa isaga midkiisa la waxa loo yaqaan laba qoole halka midda dhadig loo yaqaano adeeriyo in kooxa oo goodir ah oo meel wada daaqaysa waxa loogu yeeraa urur goodir ah waxay ka kooban yihiin qoyskan family-ga ahi ama Serfdai kuwan loo yaqaanaa 47 xubnood oo ku kala xiran deegaanka ku kala nool yihiin waxay ka mid yihiin qoyskani xayawaanada inta badan oo deegaanku saameeyo waxa laga yaabaa deero bulbul badan inaad ku aragto waqooyiga Ameerika halka mid yar oo daciifa ama aan hilib badan lahayn laga yaabo inaad ku aragto qaaradda Afrika midkani waa midka loo yaqaan biciidka waxaana inta badan lagu gartaa geesaha aad iyo aadka u toosan waxa loo yaqaan midkiisa lab saryan halka midka dhadig loo yaqaano biciid isla mar ahaantaasina koox biciida oo meel wada daaqaysa waxa loogu yeeraa yaham qamamley waxa la sheegaa biciidku inuu yahay midkan ugu fulaysan duurjoogta wana raadkiisa dib soo raaco galabtii baqa wuxuu ka qabo awgeed waxaana midkiisa yar loo yaqaan biciidka sawaro garanuugta midkeeda lab waxa loo yaqaanaa liig halka midkeeda dhadig loo yaqaano tigney liigu kolka uu yar yahay waxa la yiraahdaa warad in kooxa oo garanuuga oo wada socotana waxa loogu yeeraa dan garanuug ah
waxaa loogu yeedhaa cawsha midkeeda lab tixidh halka midda dhadig loogu yeedho masaal in kooxa oo cawla wada socotana loogu yeedho goosin cawla. sidoo kale waxaad ka bogan kartaa sawiradani oo ay ku qoran yihiin qaar inaa sheegin iyo qaar ina xusnay intaba.